annaga gari baan nahay maqaabal bahgari maxamed suwer waa ku soo soconnaa gari yaa ku soo socda dadka nala deganna garab inay na siiyaan ayakaba garab na siiyay dhigi jireen maanta anigana waxaan leeyahay wajiya south dadka ku nool garab waa inay siiyaan gari komba MP aan soo qaadanaynaa MP-gaas waa inay nala qabtaan waxaa la rabaa keetigaas ay garbaha isku dhudhufanayeen halkaas naaska maalintaana inaan dhidhiminaan rabnaa waan rajaynaynaa inaan ka helno qabiilkii midnimada laga hadlay wuu midoobay waxaan rabnaa wixii siyaasiga oo qabiilka uu soo magacaabo ayaa la isku raacaa guddigaasa soo xuli doona iyo garaadkaa soo xuli doona muwaafaqadii tolka iyo diin akhris iyo dantaasaa lagu jiray tolnimadii ayada ahayd way ansaxday alxamdulilah ilaah waa mahadle talada tolka iyo walaalnimada iyo ehelnimada yaan wadnaa beeshna la laabta ogaadeenkana saasaa ka warqabeen marka dhalinyarta gari komba waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo farxad ayaan maanta sida runta ah maanta aad baan u farxadeysanahay waan ku faraxsanahay kulanka beesha gari komba waxaanan diyaar u nahay insha Allah inaan midnimada cidda anagoo dhalinyar ah aan ka shaqeyno waan ku faraxsanahay horta marka koowaad waan ku faraxsanahay saan u soo qaybgalnay beesha gari komba maanta maalin aan ka farax badanahay adduunka ima ay soo marin midnimo gari komba yaa saddex beri aan inta u taagneen si sharaf lahay nooga dhammaatay gacmahan isqabsannay guul aan weligaan gaarin baan gaarnay inuu ilaahay hor nooga sii wadaa ilaahay baan ka rajaynaynaa waxaan kaloon ku darayaa daafaha caalamka Wajeer County hasa Wajeer South waxaa aan la degannahay ogaadeen aan wada dhalanay ogaadeenkaas baan ka mid nahay ogaadeenka annaga gari baan nahay maqaabal bahgari maxamed suwer afarta lafood oo Wajeer degtaan ka mid nahay waxaan saddexda lafood oo walaalayaashayn aan ku soo dhaweynayaa maanta midnimo gari aa dhacday ku farxa sidaan annaga ugu faraxnay adinkana noola farxa xambaliyadaas ogaadeen aan u diraa waxaan ogaadeen aan ka codsanaynaa waa ku soo soconnaa gari yaa ku soo socda gari komba oo aabood waxaa la rabaa keetigaas ay garbaha isku dhudhufanayeen halkaas naaska maalintaana inaan dhidhiminaan rabnaa waan rajaynaynaa inaan ka helno walaalayaal waan ku soo soconnaa waa idin salaamaynaa salaam 114 quraanka in ku salaamaynaa saddexda qoys oo walaalayaashayna warkaanaga aad u qadariya maanta gari garaadkiisa iyo culimadiisa iyo caamadiisa iyo raggiisa bilcaantiisa waxba kama maqna salaantaas yaa ladin soo gudbiyay salaantaas naga qaada waa mahadsantihiin keetigii aan u soconno gacantiilaas ku jira gacantiinaas ku jira waa inaan helna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ماشي أنا حنسكوه إيماني أنا كوباشي جري كومبة ما عرفت إن آن قرآن أخسرنا كدب آن وحنسوب سنة استراتيجيك بلان كاس أو ما عرفتي دادي هنا أيوه هولها جري كومبة أو كشقين دونا سيد النولش هذا كسبسن أي هات السياسة أي هات ما عرفت sida kala guud marka annaka hadaan beesha gari koobanahay strategic plan kaas wixii ku jira ayaan ma aragtay aan qaabilsanahay aan aaminsanahay aanan ku soconaynaa wada jir annaka meelna kala aadaynin inaan annaka kursi aan ku ahaadaba aan annaka isoo sharaxna on sanadkan qof kale u daba taagneen ayaan cadaynaynaa annaka waxaan nahnay beel idil oo Wajeer South dhinac ka degan kursi qof alla qofkan soo qaadana ayaa dhamateli doona kursiga MP-ga iyo wax alla wixii kale on county ka rabna marka waxaan leeyahay annaka meel alla dadka nala deganna garab inay na siiyaan ayakaba garab na siiyay dhigi jireen maanta anigana waxaan leeyahay Wajeer South dadka ku nool garab waa inay siiyaan gari komba MP aan soo qaadanaynaa MP-gaas waa inay nala qabtaan marka insha Allah waan isla joognaa waan isla shaqeyn doonaa بإذن الله الكريم tuko pamoja. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maanta noo soo dhamaaday shirkii oo beesha gari komba oo 3 maalin ahay jimcadii sabtiga xaddi oo jimcada quraan aqriseed shalayna ma artay wada hadalkii taladii ay ahayd ay maantana garaadkii beesha gari komba oo ma artay akhri warmutiyeedka ka soo baxay fadhiga 3 bari socday marka maanta aad baan u faraxsan yahay anagoo ma artay ku hadlay magacii beesha gari komba oo nahay ma artay xildhibaankaadu ay ka soo doorteen degmo baarlamaanka hoose oo Bureer Ward waxaan isku afgaranay inaan ma artay garaadka guddi ku xirnaan sameeyno siyaasadda
geedi socodka siyaasadda 2027 inaan maaragtay hal meel marno oo beeshii meel ku higno oo member of parliament kayna aan qof geysano meelaha kalena beelaha wajeer wada degan aan la xisaabtanno oo maaragtay wax ku darsano governor oo meel isku tagna marka waxaan faraxdeed aad u soo koobo maanta hadalkayga ma farxad badan baa maaragtay ka muuqata marka insha Allah waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer wajeer inaan maaragtay isku xirnaano oo nabadda ka shaqeyno marka annagana waxaan leenahay beesha gari koomba nin Allah ninkii way furantahay nin Allah ninkii maaragtay aan wax la qaybsanayno waan soo dhaweynaynaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaydu waa Cabdinaasir Cabbaas Kafo anoo musharax xildhibaan cidda beesha gari koomba u taagan kursiga wajeer South oo ka soo qayb galay shirkan aad waxaan ugu faraxsanahay go'aanada ka soo baxay shirka oo aad farxad gelin leh oo aad xoog loo saaray midnimada cidda aniga waxaan ku raadinayaa kursigan waa ciidan magaceeda iyo midnimadeeda aniga haddana u tahay qof kasta oo shakhsi kasta oo ciidan magaceeda sheeganaya dan u tahay taasna aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa wixii wanaagsan oo cidda xaggeed inaan wax waan ku raadinaynaa waana la shaqayna doonaa guddiga la soo bixina waan soo dhaweynaynaa wax dhib ma jira taasna waxaan waan sugaynaa wixii kale oo tiimka ka soo baxay insha Allah. Ibrahim Abukar Umar waxaan ahay nin oday oo ka tirsan beesha gari koomba jamcadi sabti iyo maanta oo axad qowskan gariga fadhi iyo kulan buu ku lahay meeshan meel walba la iskaga imaaday Nairobi Garissa ilaa countiga Wajeer Sielo meel badan la iskaga imaaday qowska tala guud u gaari iyo mid hoosa waxyaabaha ka soo baxay oo qowska arrimihiisa waxa ka mid ah guddi u taliya qowskan oo garaadka la shaqeeya yaa la qaban rabaa muddo 60 bari gudahood yaa guddigaas lagu qabanaa guddigaas oo siyaasad dhaqan wax walba qabiilka ka mathalaya ayaa la qaban rabaa qabiilkii midnimada laga hadlay wuu midoobay waxaan rabnaa wixii siyaasiga oo qabiilka uu soo magacaabo ayaa la isku raacaa guddigaas soo xuli doona iyo garaadka soo xuli doona marka waxyaabahan ka hadalnay intaas ay ahaayeen waxa kale oo qabiilka uu ka hadlay midnimada nabadgelyada iyo dhaqanka iyo wada noolaashada bulshooyinka aan isla degannahay oo ama ilmaadeerka aan nahay ogaadeenka dagoodiga ajuuraanka iyo Soomaalida kale iyo dadka reer Kenya kaleba inaan wada noolaan maxay yeelay qowskan Nairobi degan yahay Garissa degan yahay ilaa Busia Uganda Tanzania meel walba degan yahay inaan midnimada ka shaqeyno waxaan meesha ka sheegaynaa midnimada toleed iyo wixii horumar oo la rabay in la gaaro insha Allah billahi ta'ala dalka muwaafaqadiisa iyo waxaas bay ahayd ma ahayn xirdi colaadeed iyo qabiil rixiis iyo si kale iyo dabandaabo kale ma ahayn muwaafaqadii tolka iyo diin akhris iyo dantaas lagu jiray tolnamadii ayay ahayd way ansaxday alxamdulillah ilaahay waa mahadle guddi koomitiya jiro wax qabad toleed baa jirto insha Allah billahi ta'ala sheekadii tolka saasay ku soo khatimantay hadda waa dhamaatay waxaan ahay beesha gari koomba shirkan ilaa 3 bari la daadinay danta gariga iyo ehelnimada iyo walaalnimada beesha gari koomba hordhac uu yahay wax xumaan oo kala wadnimo laha talada talka iyo walaalnimada iyo ehelnimada yaan wadnaa beeshana la laabta ogaadeenkana saasa ka warqabeena wax dul iyo balaayo ma wadna ehelnimada wadnaa dantaayna wadnaa koomitiyaa jirta wax kastaa jirta insha Allah qaasatan wajeer South nabadda islaamnimada walaalnimada lagu joogan rabnaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحنا سيد بلا عبد حسين باش جريكم يا شيخ بقى كان كجرا صدق معنا فدني وعن اسكر علي إن جودي سماي سنو جودي جاس وقبيل كحاجة ورا لها وضرنا الله إصرار أنا مثل دقيقة بتجيلي كل نولاد جيرانه أنا بتجيلي كل نولاد واحد درا هذا هنا أيضا ميستان سي أو اسكر عيد إيه اللي بتجيليه إيه وناك إيه من ما كل شيء ninka walaal wax la qaybsan doonana markaan dantayn iska dhax aragnaan ka tashan doona anagana hadda nabadgelyada isku raacnay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. meeshan maanta waxa isugu imaaday beesha gari oo go'aamo ku gaartay ku heshiisay ku nabdowday dhan siyaasi dhan diineed ehelnimo si walba ku midowday waxa odayaasha ay sheegeen dhammaantood waa run anigu waxaan ka imaaday meesha Daaro Xuseen aan leeyahay meesha leeyahay Bilcilburbuur location Bilcilburbuur beeshaas maanta go'aan bay meeshan ku gaartay waana lagu heshiiyay war dhamaaday. Assalaamu calaykum. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Aniga waa Ibrahim Siraad
سيرك ومتيجي وهاي معركتي ميتينك وحنا الغالين معركتي بريان بقى الغالين يعني سدح بريان يعني ميتينك غواني قال يوصي ماذا unity of purpose بالله هذا هي من ماذا معركتي هي political relevance أي الله قال لي معركتي الحمد لله رب العالمين هو إسرائيل ذاتي وإسرائيل ومدي معركتي حالي نقطي مركا وعندونينا إلى معركتي سياستنا عشان قلنا أو معركتي أقرب عن قبسنا معركتي وحي سياسة معركتي حملوجة سياسة معركتي وكاونتي جاي نشر الخبر عن شيء قلنا دورنا يا معركتي ما عند معركتي تدبرنا الحمد لله رب العالمين عند كل واي ماضي ولا شيء ماضي إلى معركتي ميل كساعة لقي ماضي مركب وحلو ماضي وحوي معركتي من ماذا عندنا معركتي وحيكون كل سنة معركتي الحمد لله رب العالمين وحيكون كل سنة إنه مدي معركتي فعلا موجود عاي أو من يعني من ماذا عن موجني magacaydu waa Xuseen Axmed Cabdullaahi waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo farxad ayaan maanta sida runta ah maanta aad baan u farxadeysanahay waan ku faraxsanahay kulanka beesha Gari Komba waxaan diyaar u nahay insha Allah inaan midnimada cid anagoo dhalinyar ah aan ka shaqeyno waxaan diyaar u nahay in qabaa'ilada kale ee nala degan wadanka Wajeer County iyo Wajeer South inaan la wada shaqeyno insha Allah waxaan diyaar u nahay midnimo iyo nabadgelyo inaan ciidaha iyo qaraabada kale u diriska aan la nahay inaan kula dhaqano taas ayaan diyaar u nahay insha Allah وانا دذالينا وحن ديارنا وحي دتك كلا اي رمان ان انغنا ان ربنا ان شاء الله وانا رادسن دونا وحي دولده نوغا مقان marka insha Allah intaas ayaan u baahan waan ku faraxsanahay horta marka koowaad waan ku faraxsanahay saan u soo qadgalnay beesha Gari Kombe farxadda in la soo koobi karo maadaama hadda aan ka soo qadgalnay beesha Gari Kombe aad iyo aad aan u faraxsanahay maanta farxaddeeda lama qiyaasi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay wiilasheena quruxda badan iyo gabdhadeena shidan inaan meel ku midoowno oo wada kulano oo gari aan isku wada imaano dhamaanteen aad baan u faraxsanahay maanta aad baan runtii ugu mahadcelinayaa tolka iyo dhammaan qabanqaabayaasha xafladan quruxda badan ee halkan ka dhacday ee isku yimaadeen tolweynaha beesha Gari Kombe oo anigana aan ka soo jeedo tolka runtii waxaan u sheegayaa midnimada in ay tahay shayga kali ee lagu meel mari kara lis adeeca madaxda laga dambeeya garaadka iyo guud ahaan siyaasiyiinta oo ugu horeyso maamada iyo inta kale oo madaxda la soo doortay iyo inta la soo dooran intaba iyo loolamayaasha dhamaantood la tixgeliyo qof kasta ee maaragtay hamigiisa lagu tixgeliyo daweyntii ku dara udoodkii ku dara midnimo doonisteedii ku dara